afartii bisha 10/2020 waaxda duurjoogta wasaaradda deegaanku waxay bilowday xog ururin lagu sameynayo ama tirakoob lagu sameynayo duurjoogta la haysto ee lagu haysto hoteelada iyo goobaha kale goobaha institutions ay kamid yihiin marka Maroodi Jeex way tiimku ka bilaabeen imika gobolada oo 4 gobol waa Maroodi Jeex iyo Awdal iyo Saaxil iyo Togdheer marka tiimku imika waxay u baxayaan Awdal oo waxa weeye iyo Gabiley ay ka soo hubinayaan duurjoogta la haysto marka wasaaraddu iyadoo ka duulaysa xeerka ilaalinta kaymaha duurjoogta waxay mar walba fulinaysaa waxa weeye xeerka iyo awaamirta wasiirka wasaaradda deegaanka iyadoo ka duulaysa xeerka ilaalinta kaymaha duurjoogta wareegtahay soo saartay oo ay ku sheegaysa in waxa weeye la wareego dhammaan duurjoogta la haysto inta ka hor in la soo hubiyo duurjoogta wixii ku kordhay iyo waxa weeye xaaladooda caafimaad iyo sida yihiin marka tiimku waa diyaar waxa weeye waxay diyaar u yihiin wax kale nala socda dhakhtarkii oo eegi doona insha Allah taala xaaladooda caafimaad maanta halkan waxaan doonayaa inaan idinku wargelino oo idin la wadaagno shaqo ay qaban doonaan waaxda duurjoogtu oo ay u kala bixi doonaan gobolada 4 gobol weeyaan afarta la doonayeen xog la saaro Maroodi Jeex Saaxil Awdal iyo Togdheer anagoo ka duulayna run ahaantii xeerka number 69 ama 69 xeerkaas oo ah kaymaha iyo duurjoogta ayaa wuxuu anagana faraya xeerkaasi inaanu waqti kastaba ka warhayno duurjoogta lagu hayo meelaha private-ka ama hoteelaha ama guryaha ama institutionada kala ha inaanu ka warhayno 2018 waa la diiwaan galiyay si wacan baa loo soo wada diiwaan galiyay 2019 waa la soo hubsaday waa la soo eegay imikana waxaanu doonaynaa sanadkan intaanu dhammaan in dhulka la soo maro oo la eego waxa ku kordhay ama ka dhinmay xayawaanka marka ama duurjoogta ay gacanta dadka ku jirtay iyo institutionadaba ku jirtay markii la diiwaan gelinayay waxa runtii loo aan diiwaan gelinay 157 ayaanu diiwaan gashana 330 anaga gacanta ku hayno harimacad bay haayeen in kastoo maanta kordheeno 77 ay marayaan maalintaas 3 bay haayeen marka dinta ka reebto waxa imika xusid mudan waxaan la doonaynaa inta aanu ka soo qaadnay meelaha kale ama aanu ka soo qaadnay institutionada oo ah maanta 720 waxaanu ka soo qaadnay hadii aan la kuurooyay miiska saraakiisha banka waxaanu ka qaadnay 3 Grand Hotel waxaanu ka qaadnay 2 Smartna waxaanu ka qaadnay 1 inta marka la isu geeyo waa 330 ka waxa la geeyay dabis halkaas intaas joogto waana tarantay maanta laban laabay maraysa waxa haray hadaba 101 diibaan ku harsanaa marka dadka gacantooda hoteelada iyo institutionada ayaan doonaynaa inaanu eegno bal caafimaadkoodii sida yihiin iyo maxaa ku kordhay iyo maxaa ka dhimay Maroodi Jeex waa la dhameeyay waxa la tagayaa hadii aan la yiraahdo loo ama baxaya waa Awdal marka waa Saaxil iyo waxa israaciyay iyaguna Togdheer marka dadweynaha runtii waxaan maanta ka doonaynaa inay naga caawiyaan inay noo fududeeyaan xayawaanka ay gacanta ku hayeen ama duurjoogta ay gacanta ku hayeen bal inaanu la eegno koow inta ku korodhay ama ka dhimatay iyo caafimaadkooda guud sidoo yahay hadii marka caafimaad ay u baahan yihiin ama caafimaad degdeg ay u baahan yihiin dhaqaatiir baa la socota halkaas lagu daweyn doonaa wixii ka dambeeyana waa la socon doonaa marka waxaan leenahay in la ogaado oo nala ogaadaan booliiska oo nala ogaadaan hadii ay barasaabadu nala ogaadaan meeradu inta ama iyo isduwayaasha dubayna ogaadaan oo gacan laga siiyo hadii ay tiimka waanayno meel walba calaamadsan yihiin duurjoogta joogta wayno calaamadsan tahay meel kastaba hadii la yiraahdo ama institution ama guri ama hotel say doontaba haatee waan ognahay Saaxil baa ugu badan Saaxil waxaan doonaynaa inay noo fududeeyaan si wanaagsan noola shaqeeyaan oo si ay hawsha noogu fududaato gacan wanaagsan naga siiyaan si tirakoobka aanu sameeyno hadii aan leeyahay waqtigeeda dad baa inta la kaale qaada waan ka qaadna qofkii kaale naga qaado voluntarily waan ka qaadna markiiba inta kalena intii loo diyaar garoobay hadii aan la yiraahdo iyaga gacanta ku hayn doona biidnillah waxaan doonayaa in halkan dadka xasuusiyo duurjoogtu waxay ku wanaagsan tahay duurka duurjoogtu waxay ku wanaagsan tahay duurkeeda wax walba meel baa loogu talagalay duurjoogtu waxaynu doonaynaa inaynu duurkeeda u deeyno oo dadku soo qabsan oo soo qafaalan waayo dhibaato fara badan baa la kala kulmaya
inta kaliya la quudinayo ama la daweynayo ay kharashka ku baxay ilaahay baa og marka in loo daayo duurkeeda waxay kaga fiicantahay ma jirto anagana xeerku waana faraya in la tirakoobo in meelo loo sameeyo in dhulkii lagu xanaaneynayo loo sameeyo in marka kuwii marka duurka gali karaya ee duurkoodii lagu celin karayo in kuwa hadii la duurkoodii lagu celiyo iyadoo la eegayo siday marba xaaladoodu ay tahay marka dadka waxaan leenahay soo qabsanina oo soo qaadanina ka soo qaadanina way lama ogolo xeerkaanu inoo ogoleen in dadku soo qaataan guryaha iyo dhulka kale ku haystaan marka waxaan leenahay dad cusub yaanay la imanin oonay soo qaadan hadii cid cusub lagu og yahayna inay dadku nala soo xidhiidhaan si aan u diiwaan gelino hadii alla yeelo laakiin waxaan leenahay xeerkuna faray annaguna aan idin farayna in aan idin soo qaadan duurka loo daayo duur joogta duurkii loo daayo